ayadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay dadaal xoogan ugu jirto hirgelinta nidaamka federaalka iyo waliba in wadanka Soomaaliya la gaarsiyo doorashooyin xura sanada 2016 ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa sii xoogaysanaya dadaalka la xiriira in dib u heshiisiin la dhaxdhigo mujtamac ku nool gobolada dalka Soomaaliya. gobolada dhexe Soomaaliya waxay ka mid yihiin goobaha ay ka socdaan dadaaladaasi ayadoo la doonayo in maamulo loo sameeyo gobolada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha wadanka Soomaaliya. ayadoo taa ay jirto ayaa haddana mas'uuliyiinta labada maamulo waxay rajo wanaagsan ka muujin in lagu guuleysto dadaalka ay wado dawladda federaalka Soomaaliya. Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid madaxweynaha maamulka Galmudug iyo Cabdullaahi Maxamed Cali Baarleex madaxweynaha maamulka Ximine Xeeb oo si wada jir uga qayb galay barnaamijka kulanka toddobaadka oo ka baxa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa waxay ka warameen rajada ay ka qabaan in guulo laga gaaro arimahaasi. Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa ugu horeyntii la weydiiyay su'aal la xiriirta siyaabaha ku timid baahida loo qabo maamul sameynta labada gobol. heshiiskan wuxuu ku yimid marka ugu horeysa rabitaanka muxuu ahaa shacbiga iyo maamulada ka jira gobolada Mudug iyo Galgaduud oo ah dawlad goboleedka Galmudug maamulka Ximine Xeeb iyo maamulka Ahlusunna wal Jamaaca. shacbigaas iyo madaxdooduba ayaa go'aansaday in ay talada gaaraan. markay talada la gaarayna oo la isku afgartay madaxda iyo shacbigaba la isku afgartayna ayay ka dhalatay in marka dawladda federaalka loo yimaado oo laga codsado marka shirkii inay hore u dhaqaajiso sidii loo midoobi lahaa dhammaan maamulada halkaa ka jira. Cabdullaahi Maxamed Cali Baarleex madaxweynaha maamulka Ximine Xeeb ayaa waxa uu tilmaamay in arintan ay tahay in la dareemay baahiyo guud oo ay qabaan mujtamac goboladaasi ku dhaqan isla mar ahaantana lagama maarmaani ay tahay in la sameeyo maamul shacabku ay ku midaysan yihiin. baahidan waa baahi caama oo haysata ummadda degan gobolada dhexe. waa baahi aan dareensanayn maalintii ay dhacday doorashadii Ximine Xeeb oo aniga aan ku guuleystay aan ku dhawaaqnay inaan dhigi doono gogol nabadeed. waxay ka dhalatay rabitaanka dadka degan gobolada dhexe oo dibad iyo gudaba jooga. waxaan mar walba arkaynay waxa aan haysana annaga inay walaalaheen u baahan yihiin waxa walaalaheen haystaan inaan annaga u baahannahay. taas darteeda waxaa meesha ka soo baxday inaan wada hadal u furno gogol nabadeed dhigno. waa dareemi kartaa gogol nabadeed oo 12 bilood soo socotay inaysan ahayn mid maanta dad la isugu yeeray oo ay go'aamo ku qaateen. inkastoo maamulo la sameynayo ayaa haddana waxaa jira shakhsiyaad iyo waliba dad iyagu dhaliilsan habsamo socodka howlaha maamulka. Cabdullaahi Maxamed Cali Baarleex madaxweynaha maamulka Ximine Xeeb waxaa la weydiiyay dhaliilaha dadka qaar ka imaanaya sida looga gudbi karo caqabadahaasi waxaana rajo wanaagsan uu ka muujiyay in lagu guuleysan doono. waxaan rabnaa inaan cadeyno deegaanka waxa ka jira waxa ay noqon doonaan taariikh qormaysa. haddii dibadda wax laga keeno waxaan aaminsanahay ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaan inay dhibaato keeni karto. laakiin Galmudug iyo Ximine Xeeb Ahlusunna wal Jamaaca iyo dadka degan deegaanka waxa ay iyaga u tashadeen waxaan aaminsanahay inay ka miro dhalin doonto. Ximine Xeeb waxay degan tahay xeebta ilaa xuduudka Itoobiya waxay daris la tahay qabaa'ilo badan oo Soomaaliyeed. maantana waxaa farxad noo ah ama aan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inaanan ogolaan doonin nin shacabkeena ka mid ah ama qof shacabkeena ka mid inuu ummad kale wax gaarsiiyo oo keena marka hore aan xakameynayno. maamulada kale iyo deegaanka dadka degan waxaan mar walba u sheegnaa inay dadkooda xakameeyaan. taas haddii la helana waxaan aaminsanahay Soomaaliya horey u socotay. waxaan aaminsanahay waxyaabihii dhacay dadka tanaasulka laga rabo waa ogyihiin inay tanaasulaan. leadershipkeenana waxa ay wadaan in la arko oo dib loo fiiriyo ee aan la fiirin maxaa dhacay maxay ahayd heshiisyadii la soo galay see wax loo xalin karaa khilaafyadii Soomaaliya dhexmaray maxay ahaayeen. ugu dambeyntii mudane Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa ugu baaqay mujtamac Soomaaliyeed inay meel iska dhigaan kala qubnaanta iyo waliba dhibaatooyinka dalka uu soo maray hal meel ay u soo wada jeestaan. waxaan rabaa hal arin inaan marka hore guud ahaan u soo jeediyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel ay joogtaba in laga gudbo xilligii isdilka. meelo badan oo dhibaatooyin ay ka jiraan ayaa jira. siyaalo badan waxaa jira dad dhul badan oo weli shabaab uu habsaday kuwaas in si wada jira dhibaatada haysata in loo wada gurmado. Soomaaliya meel kasta oo nabadii inay qayb ka qaadato sidii deegaamadaas shabaabku haysto gaar ahaan
kuwa gobolada dhexe ka soo jeeda ee gobolka mudug iyo galgaduud meelaha ay ka joogaan dadka gobolada dhexe waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan inay arrintaas ka muujiyaan midnimo dadka walaalahooda oo dhibaatadu haysato oo noloshii iyo horumarkii iyo adeegii loo diiday inay xoreeyaan yacni waxaana rabaa guud ahaan inaan u mahad celiyo dhammaan warbaahinta iyo inta maaragtay dowladda soomaaliyeed iyo intii shirkan qayb ka gacan ka geysayba waad u mahad celinaya. dowladda Soomaaliya waxaa looga fadhiyaa in sanada 2016 dalku ay ka hirgeliso doorashooyin xor ah iyadoo ay kaashanayso dalalka caalamka.